wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowladda Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ku qabatay kulanka isku duwidda u dhaxeeya wasaaradaha dowladda Jubbaland. shirkan ayaa waxaa goobjoog ah kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland ahna madaxa xasilinta ee wasaaradda, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland, agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iskaashiga caalamiga Jubbaland iyo howlwadeenka ka kala socday wasaaradaha dowladda Jubbaland. ujeedada kulanka ayaa daarnaa kor u qaadista wada shaqeynta iyo isku dabaridka dowlad wanaagga iyo adeeg bixinta bulshada deegaanada dowladda Jubbaland. kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland ahna madaxa xasilinta ee wasaaradda Xaaji Cabdiwaaxid Xaaji oo go'aan shirka ka hadlay ayaa sharxay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulankan uu daaran yahay. shirka waa shir bilaa bishii hal mar ayaa la qabtaa, waa kii afraad waana kii ugu dambeeyay sanadkan 2025. inta badan waxaa looga niqaashaa oogana wada sheekaysnaa caqabadaha wajahaya wasaaradaha markay ku hurgalayaan degmooyinka kala duwan. degmada Kismaayo keli maaha, caqabadaha kadibna maxaa guule ay gaareen wasaaradaha oo ay ka gaareen degmooyinka Jubbaland guud ahaan markii howlahooda ay wataan shaqooyinkooda maalinlaha ah. guulaha kadibna waxaan soo saari doonaa action point ama soo jeedino ku saabsan caqabadihii iyo guulihii la gaaray, sidee sanadka dambe haddana uga bedelnaa wax ka duwanna aan u helnaa. marka guud ahaan shirka waa intaas ku kooban yahay. waxaan aad ugu faraxsanahay shaqaalaha iyo howlwadeenada wasaaradaha kala duwan iyo degmadii inay halkan xaadir ku yihiin si aan uga niqaashino hadafka guud ee shirka aan maanta iskugu nimaadeen. agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Jubbaland Cabdullaahi Axmed ayaa dhankiisa sheegay in kulankan uu yahay mid muhiim ah. runtii shirka noocan oo qayta waa muhiim. wasaaradda arrimaha gudahana runtii in ay xilli kasto soo qaban qaabiso isku keento agaasimo waaxidii agaasimayaasha guud iyo qaybaha kale ee bulshada ka kooban tahay in laga wada hadlo dowlad wanaagga iyo isku xirka dowladda hoose iyo wasaaradaha. dowladda hoose oo runtii ah nidaamka ugu wanaagsan dowlad dhiska. runtii hadda halkan degmada aan ku noolnahay ama degmada Kismaayo waxaa ka jirta dowladda hoose statekiina wuxuu degan yahay ama headquarter u ah haddadan waa magaalada Kismaayo. in degmadii iyo wasaaradihii ay wada shaqeeyaan oo shirka noocaan ah la qabto bila ama 3 bilood loo qabto waa aad iyo aad muhiim u yahay. in shirkan la qabtana wuxuu keenayaa in ay bal dowladii hoose iyo wasaaradihii iska warqabaan. dowladda hoose ama hadda degmada Kismaayo waxaa laga fuliyaa mashaariic kala duwan oo runtii wasaaradaha kala duwan ay fuliyaan. markaas ayagoo lagu fulinayno magacii dowladda hoose laakiin meesha laga fulinayo ay tahay degmadii Kismaayo iyo dowladda hoose. in ay dowladii hoose ka warqabtana waa wax aad u fiican. maxamed weli agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee dowladda Jubbaland ayaana si rasmi ah kulanka u daafuray. marka wasaaradda arrimaha gudaha waan uga mahadcelinaynaa qabanqaabada shirka noocan oo kale waxaa la rabaa inaan sii wada wadno oo qayb ka noqono hadduu Ilaahay yiraahdo. dowladaha hoosena dowladdeena 3 qaybood bay leedahay, waa heer federaal, heer state iyo dowladihii hoose. annaga heerka state iyo dowladihii hoosena aan isku xirnaan horta aan ka shaqeynay, bal federaal aan u soo laabanay. federaalku waad baartaan caqabadaha ka jiro taa iyada haddaan hagaajino oo guryaheena soo hagaajisano, degmooyinkeena hagaajisano oo state iyo degmo isku xiran oo khilaaf ka dhaxaynin oo horumar ka wada shaqeynaya aan noqono, markaasaan federaal la xisaabtami karnaa oo kor u socon karnaa hore u socon karnaa. marka waxaan rajaynaynaa wasaaradda arrimaha gudaha wacyigelinta noocaan iyo dowlad dhiska inay sii wado sii socoto hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo howlwadeenada wasaaradaha oo agaasimayaasha guud ay ugu mid yihiin ismatalaadooda iyo isku tiirsanaantooda iyo isu kalfurnaantooda iyo wada shaqayntooda. runtii weli waayadii dambe sii kordhaysay inay ismatalaan oo isgarab buuxiyaan dowlad dhiska qayb weyn ka noqon doontaa. runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa shirka saaka ee dowladaha hoose wada shaqayntooda ay la yeelanayaan wasaaradaha kala duwan dowladda Jubbaland. agaasimayaasha official uu agaasimayaal loogu furan yahay dhammaan howlwadeenada.
shirkan ayaa ahmiyadiisa ahayd sidii loo sii adkeyn lahaa isku xirka iyo isku duwidda howlaha wasaaradaha dowladda Jubbaland taasoo sare u qaadaysa wada shaqaynta iyo adeegida bulshada. Maxamed Xuseen Salaad, Jubbaland TV, Kismaayo.